meelaha kuleylkoodu sarreeya waxaa ka mid ah magaalada Daluul ee dalka Itoobiya oo ah meel uu gaadhay heerkulka ugu sarreeyay ee sanadihii 1960 ilaa 1966 kaasoo qiyaastii ahaa ilaa 94 digrii Fahrenheit. qiyaasta waa caadiga ee dhexdhexaadka waa deegaankaas iyadoo sanadka oo dhan aan heerkulku cimiladu marnaba isbedelin. magaalada Timbuktu ee dalka Mali oo ah magaalo taariikh ballaaran ku leh gobolkaasi ahaydna magaaladii ay dhabaha u ahayd ganacsiga qadiimka ah ee Saxaraha Afrika isla markaana ay sii mari jireen inta badan kolonyooyinkii baayac mushtari ee dhanka bariga sidoo kalena ay ahayd magaaladii doorka muhiimka ah ku lahayd ku faafitaankii diinta Islaamka ee qaaradda Afrika ayaa dhanka kale caqabadaha waaweyn ee magaalada Timbuktu iyo deegaankeeda haysta waxaa ka mid ah dabaysha Saxaraha ee xilli sanadeedka isku daboosho gobolkaasi iyo sidoo kale kuleylka mandaqadaasi oo gaadha ilaa 130 digrii Fahrenheit. deegaanka Qubli ee dalka Tunis oo ah qayb ballaaran oo ka tirsan dalkaasi ayna ku yaalaan goobo dalxiis oo ahmiyad ballaaran leh ayaa waxa ay mar ka badan noqotay meelaha ugu kuleylka badan dunidan aynu ku noolnahay iyadoo kuleylkoodu gaadhay 50 digrii oo centigrade. qiyaasta oo ay ku gashay buugga lagu xafido waxyaabaha cajiibka ee rikoodhka gaadha maadaama ay gaadhay meeshii ugu kululeyd ee uu heerkulku ka gaadho qaaradda Afrika. mandaqada Rubcu Khali ee jasiiradlamoodka Carbeed oo ah saxare camuudeedka ugu ballaaran dunida kaasoo ku daboolan 3 dalool oo 1 dalool mandaqada jasiiradda Carabta ayaa waxa saxarahaasi qayb ka yahay wadamada Sacuudiga, Yemen, Saldanada Cumaan iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo ay jirtay heerkulka mararka qaarkood inuu saxaraha ka gaadho qiyaastan 60 digrii oo centigrade ahna mandaqad ay roobabku ku yar yihiin. mandaqada Casiisiye ee dalka Liibiya ayaa sanadkii 1922 waxay gashay taariikhda markii ay noqotay mandaqadii ugu kululeyd weligeedba. deegaanka loo yaqaan dooxadii dhimashada oo ka mid ahayd saxaraha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa noqotay mandaqada ugu qaleylka badan uguna diiran waqooyiga qaaradda Ameerika waxayna mar ka mid ah taariikhda noqotay meeshii ugu kululeyd dunida iyadoo heerkulkoodu gaadhay ilaa 134 Fahrenheit. deegaanada ka midka ah dalka Australia ee bannaanka ayaa ka mid ah meelaha ugu kuleylka badan caalamka iyadoo ay Australia ku yaalaan meelaha ugu qaleylka badan dunida isla markaana ay leedahay saxaro ballaaran ayaa dhanka kale dhulkeeda kuleylka ah waxaa deegaan ku ah dad tiro yar iyadoo qiyaastii heerkul ee ay wakaaladda sahminta hawada sare ee NASA ee dalka Mareykanku ka soo samaysay heerkulka mandaqadaasi ay tilmaamayeen inuu gaadhayo ilaa 156 digrii Fahrenheit.